sanadka 2015 waxaa noo suura gashay in aan mar labaad la kulanno familkii iyo qoyskii uu ka soo jeeday Maxamed Amiin Axmed Jeylaani oo lugta ka dhaawacnay oo ah wiil yar oo da'diisa u dhaxayso 10 ilaa 9 sano wiilkaas oo ku dhaawacmay shil gaari oo lugta uu ka dhaawac halis uu ka gaarsiiyay hay'adda Mama Caasha Foundation oo ah hay'ad oo taakuleen u sameeysa dadka masaakiinta ama tawaalaysan ayaa maanta waxa u suura gashay inay guddoonsiiso lacag ay tiradeedu gaarayso $10,000 Mareykanka ah cunugaas hadda wuxuu ku jiraa isbitaal ku yaala Malaysia marka waxaan u rajaynaynaa in ay kaalmo kaga dhigtaan daawadii iyo operationkii cunugii meesha loogu sameeyay khaliinkii wixii kale oo dadkii oo Ilaahay khayr ha ka siiyo gacanta ka geystay ay ugu soo kaalmeyn karaan waxaan rajaynaynaa inay wili ay Mama Caasha ugu soo hagaajin karaan annagana waxaan u balan qaadaynaa wixii ay noo soo dhiibaan sida ay noogu soo dhiibeen inaan u sii wareejino waxaan ku wareejinaa ayaya nuurta oo ah ayayadii soo korisay Maxamed Amiin waa ayayadii dhashay aabihii dhalay Maxamed Amiin ayay nuurta waxaan ka codsanaa inaad iga guddoontid anigoo ku hadlaaya magaca wakiilka Mama Caasha Foundation u fadhiya magaalada Muqdisho waxaan ku guddoonsiinaa lacag tiradeedu ay dhan tahay $10,000 Mareykanka ayay nuurta iga guddoon lacagta wixii kaloo dhihi lahaydeen dadkii oo shalay kaalmada ka geystay oo lacagta cunuga ugu soo kaalmeeyay isbitaalka waan la xiriirnay waxay sheegeen in oo qaliinkii saddexaad uu maraayo oo $2,000 loo baahan yahay marka intaan waxaan leenahay ku kaalmeysta wixii kale akaanku idinku soo dhacan waxaan idin ballan qaadana inaan idinku wareejin doono dadkii kaalmada ka soo geystay oo idin soo gaarsiiyay deeqdan lacageed wixii aad dhihi lahayd 1 iyo 2 ku soo dhawaaw ay maama hada waa arki $10,000 la ii keeno Mama Caasha loo dhiibtay waxaan dirjaa khayr la siiyo soo dhiibeen walaalayaasha soo dhiibeen khayr la siiyo taasaan ugu ducaa Maxamed Amiin eedadiisa iyadana 2 iyo 1 maalin meel walba joogaan waa salaanta muslimka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Mama Caasha waana soo guddoonsiisay ma sha Allah ilaahay ajir xasanaad siiyo lacagtii oo ciidadeeda $10,000 cunugii isbitaal uu joogaa waa sidii la sheegay ilaahay in qof kasta kaalmo ka geysata cunugaas oo yar oo xanuunsan ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo meel walba ay joogaan salaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلام يا Mama Caasha إلهي كأول مرة محمد أمين جيلاني محمد أمين أحمد جيلاني يعني أساس حال كيسة وأرمي كيسة يعني ما أنت يعني أنت ولا له الصومال أنا مركان يعني كبرت إلى دماتي أنا وعدسلي إني يعني كان ملي وسع نقاسي يعني هذا ما دام أوتن في يعني رحلة قوية يصير بنان كان يعني لو أنا أوهل لها ولا له أنك عدسلي يعني ملك استأجيب تبو أجيوان ويكون مهتسني يكون الدنيا أغر الله كوا أول مريض كستب في يعني وكبيستي Mama Caasha ويكون مهتسنتاي إذا نحتاجوشات وحلا يسكسرتي ويعني وحي عنقاس يعني أي هالشيء وكقدوني $10,000 وهذا ملا سيتاك مليسي يعني لو لقول ميبايو وحي هذا أو يعني ضمن كلته أو كصباحنا وهذا يعني تاسينا يعني هذا إلهي وحديثا قريته هنا ويكون مهتسني أنت وحب قوة أو وحب جيستي الدنيا آخر إلهي أسكاب المريض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته